ماير محمد جامع حرسي قار كميدا غوليhiisa deegaanka degmada Xudun ee gobolka Sool xisaabiyaha banka Laasan Cabdifataah Ducaale Jaamac oo bariyahan kormeer ku sameeyay waxqabadyada dawladda hoose ayaa kormeeray fayadhowrka waxayna gaadheen godka qashinka degmadaasi sidoo kale waxay sheegeen in la gaadhay xilligii degmadu ay bixin lahayd cashuuraha kala duwan waxayna bulshada ugu baaqeen in ay u diyaar garoobaan cashuurahaasi waxana hadalladooda kamid ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahad iska leh maanta iyo maalintii bartan aanu imaanaynay hore laba maalmood bay kala yihiin run ahaantii maalintii aan ku fikiraynay in godkan qashinka la sameeyo baabuurkiina loo sameeyo qorshahayagu wuxuu ahaa in wax la hirgeliyo laakiin maanta waa midho dhal adduunkan waxaan maqashay in marar badan la dhaho Roomo maalin kaliya lama dhisin waa run wax kasta oo adduunka yaala step wax loo qabtaa golaan deegaanka cusub intay shaqeynayeen waxaan ka taabanayaa dhowr mashaariicood oo iyagu ay ku mudan yihiin annaguna aanu kala shaqeynay haddaan nahay dhalinyarada aqoonyahanka ee ka soo jeeda degmada waxaa ka mid ah godkan qashinka oo gaarigiisii iyo godkiiba u dhammaystiran yihiin iyo shaqaalihiisa oo dhammaystiran oo bil kastaba lacagtoodii ku leeda ay qaataan oo waxqabad la arki karo run ahaantiina muhiim ah waxaa ka mid ah sayladii oo aad ma aragteen maanta dee quruxdeeda sarabadii quruxdeeda iyo wanaageeda iyo sida wax u habaysan yihiin oo dad badan dee oo bacadkaas awal fadhiyay ay kaga nasteen waxaa ka mid ah godka deerkii dugsiga sare oo aad aragteen maanta bilicdiisa tahay iyo beeraha laga beeray iyo waxqabadkiisa u dhameystiran yihiin run ahaantii sanadkan gudihiisa miisaaniyadda waxaa loogu daray laba mashruuc inta lagu dar weeyaan hadeer waxa weeye laami 2 kiiloomitir ah oo magaalada dhexmara iyo asluubtii ay jeeshi oo ah meelaha dadka lagu dhaqan celiyo run ahaantiina waa qodob aad muhiim u ah magaaladan Xudun hadeer uu ka yaraaday maandooriyihii khamrigu waa meelaha loo baahan yahay dadka midharka sii haray in lagu rido lagu dhaqan celiyo insha Allah taasna waan rajaynaynaa in hadeer soo baxaan baahida xagga dawladda waxaa la oran karaa boqolkiiba 75 way dhamaystirtay hadeerna diyaar bay u tahay waxa la doonayaa haddaba reer Xudunow daafku wax igu qora xaq maaha Djibouti wala in kana joonadin wala keenay dhulkan balaaran aad iska haysataan haysan maysaan ama wallahi dawladda la wareegaysaa oo nin walba banaankaas ka wareegaya ama nin walba waa cashuuranaya oo wuxuu xaq u leeyahay la siinaya wadogtii intoon balankii waa la keenay master balank waa la keenay muhiimadu waxa weeye balanteena waxa weeye aan wax wada qabsano oo nin kastaaba wixii ku hagaagsan dhankiisa qabsado cashuurtana bixiya oo dawladda la xisaabtama oo xaq baad u leedahay dhalinyarada ugu faraha badan oo gobolka Sool ee jaamacadaha ka soo baxay magaalada Xudun bay joogaan qoladiina maamulkana waxaynu kula talinayaa dhalinyarada inaad ka faa'iideystaan soo dhawaysataan gacal ka dhigataan shaqooyinka aad u dirtaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh halkan aynu joognaa waxa weeye waa degmada Xudun waxaanu saaka soo indhaynay dhul badan waxaana la socday agaasimaha bangiga Cabdifataah dhulkaas oo ahaa waxqabadkii intii aan joognay dawladda hoose ay wax qabatay halkan hadeer goobtani waa goobtii qashinka iskuulkii oo kale waa soo aragnay sariibadii oo kale waa soo aragnay waa waxqabadka ugu waaweyn ee ay intii aan xilka lahayay dawladda hoose ay qabatay halkana waa godka qashinka waa aragtaan waa halka barigii hore waxa godka qashinku ahaan jiray magaalada dusheeda 3 goobood oo hadeer qashinka barigii hore la dhigi jiray oo hadda laga soo qaado hadii aad seexatid hadeerto nadiif inta ka tira qabto waad yaabaysaa xogaa reer Xudun uma qulqulsana yeeladeeda wixii hawlka madaali wali waa hogadii anaanta waa qaadanaynaa waxa weeye faraska waxa jeedalka loogu dhuftaa ha kordhiyo haddana waxa foodeen ugu soo haya mashaariic badan
oo la doonayo in degmada looga faa'iideysto haddii aan lagu sii daayo dawladda hoose oo keliyana waxba hagaagi maayo laakiin haddii dadweynaha iyo dawladda hoose ay iska kaashadaan wax waliba waa hagaagayaan taam kala u shaqeysay fayadhowrka magaaladana caafimaad ahaan waa laga dareemay run ahaantii oo goobihii magaalada dhexdeeda ahayd waa kiniin waa la seexan karaa oo wax maamulku gaadhay mashaariicda hadda inoo soo socotana waan soo dhaweynaynaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan u diyaarsanahay waxaan ku codsanaynaa degmaduna inay isgarab taagto sida wadadaas laamiga ah ay inoo soo baxday 2 kiiloomitir dee Roomo maalin laguma dhisin iyo jeesha mashaariic kale oo la yiri soo qorshaysta oo 4 qodob iyo guriga dhakhtarka iyo guriga martida qayladhaanteedana oo iska lahaa suxufi kowte oo aan aad ugu mahadiyeen iyo maartay ugu mahadnaqay horumarka fiican iyo suu degmadiisa ugu heelan yahay iyo maartay maamulka iyo maayarka runtii waqti ku bixiyay in maartay in codsigaana laga ajiibo oo waxaan u baahnay waxaan leenahay naloo tixgeliyo waa degmooyinka aad u dib dhacay bay ku jirtay anagoo meel saxada baan maantana meel wax laga sii qaadi karaan joogna waxaan ka codsanaynaa degmada Xudun inay insha Allah gacmaha isqabsato wax badan ay hidi future-keeda ka fitiro salaamu calaykum waa soo xidhay waa soo gabagabaynayaa hal dardaaran oo baan bixinayaa bulshada reer Xudun waxaan kula dardaarmayaa haddaana iyagu wax qabsan cidina wax u qaban mayso haddaana iyagu wax la iman waxba loogu dari maayo waxaan kula dardaarmayaa waxaanu jecelahay in aanu bilowno cashuurtii degmada inaanu bilownaanu jecelahay waayo dee maamul hore meesha inoo ka dhisnaa ma jirin intiina waxaan la rafanina wax qabadyada iyo haddii ay wacyigelinta iyo nabadgelyada ha loo diyaar garoobo bixintii cashuurta hadday dukaan tahay iyo hadday bakhaar tahay iyo hadday bagaash tahay iyo hadday caanalay tahay iyo hadday dhul tahayba ha loo diyaar garoobo sidii aanu dhulkeenna wax ugala soo bixi lahayn waxna ugu qabsan lahayn muhiimaddu intaa weeye haddaynan inagu wax qabsan cidina wax inoo qaban mayso laakiin marka aynu wax la nimaadno waxbaa layna ku daray maxamed maxamuud cawiil kowte degmada Xudun ee gobolka Sool